اللهم أنت السلام ومنك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada insha allahu tacaala sirta kalgacaylka rabbaaniga iyo qeybtii sagaalaad insha allahu tacaala. ilaahay jala wacala waxaan ilaahay ka baryayna ilaahay nagu anfaco wanaagga iyo kalgacaylka loo baahan yahay ee diiniga ah. saad ogtihiin walaalayaal, waxaanu soo qaadan jiray, waxaanu kalgacayl markaan ka hadlayno waa kalgacayl maaha laba qof oo keliyate. waxa weeye kalgacayl ilaahay jala wacala loogu xidhnaado, ilaahay subxaana wa tacaala iyo nabigiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lagu daydo oo la jeclaado, waalidkoo la jeclaado, waalidkoo inantiisa jecel, waalidkoo wiilkiisa jecel, waalidku maxaan ku dhaha hooyada oo maxaan ku dhahdaay wiilkeeda jecel. marka maanta insha allah tacala qisadaan soo qaadanayno maanta waxa weeye waa wiil hooyadii jeceshahay oo gabadh soo guursaday insha allahu tacaala. waxaa la yidhahdaa waa sodo iyo gabadhii maxaan ku dhahda inantii iyo sodohdeed. sidaad ogtihiinna waxa weye taariikhiyan waxay u badan allahu aclam, sidaan maxaan ku dhahda u malayni gabadhu daa'iman waxay jeceshahay inay maxaan ku dhahday iyatu ay ku ekaato odageeda oo ayna sodohda soo dhexgelin. calaa kulli xaal, maxaa dhacday? wiil kheyr ilahay kheyr a siiya iyo gabadh kheyr qabta labaa isguursaday. mar alle markay isguursadeen, laakiin wuxuu ahaa wiilku wuxuu ahaa wiil hooyadii u baariya, hooyadii ka shaqeeya, hooyadii oo xanuunsan, hooyadii la jooga. markaa gabadhan ila wa ila hooyaduna waxay jeceshahay daa'iman wiilkeeda inay ilaaliso. maxaa meesha ku jira? waxa weeye waxaan marka bidaad waxaan u malaynta siraasa ahaan maxaa mar walba ay dagaal uu ka dhex dhacaa sodohda iyo inantu. waxa weeye labaduba waxay jecel yihiin, gabadhuna waxay jeceshahay inay iyada ku ekaato odaygeeda oo jeceshahay, hooyaduna waa hooyo oo waxay daa'iman jeceshahay inay wiilkeeda ilaaliso, wanaagiisa ka shaqayso, naxariista u naxariisato, sidii ay u kolkoolin jirtay, ay marka horeba ay u jeclayd, ay u ilaalin jirtay bay tabtaa inaana qof kale soo dhexgelin. gabadha kale markay soo garatay waa laba waxaas kusoo dhacaya markaasi waa maxaan ku dhahday laba arrimo, laba dano oo iska hor imanaya. laakiin bidaad haddii la toosiyo, waxa weeye haddii la isfahmo way toosaysaayoo si fiican meel fiican bay soconaysaa. laakiin haddii la isfahmi waayo dhib iyo waxaa imanaysa dhibaato. wiil baa markaas gabadh soo guursaday, xaafadoodu keenay, hooyadii ayuu la joogaa. hooyadii baa markaas ay maxaan ku dhahday la joogta oo gabadhaas odaygeeda maraba iyadoo khidmaynaysa, haddana hooyaduna ay korka ka fiirinaysa. hooyadu daa'iman waa ilaalinaysaa wiilkeeda xaaladiisa. iyadoo sidaasa markaas waxa dhacday la joogii ay la joogtay, reerkii ay timi ee hooyadu ay joogto, ayaa mar walba waxaa ka dhexdhaca khilaafkaasoo maxaan ku idhahday ilan hooyadu waa ilaalinaysaa wiilkeeda. waxay leedahay maxaad wiilkayga waxaasu siisay, maxaa sidaas u dhaceen, maxaase tanmarka marka waxaas ku dhacday, maalin way qabaa mise aduu ku qabaa, adigu kolleyba hadalku waa iska badnaanaya. iyo maxaan ku idhahday wiilkayga wey rabash dhibaato. wiilkiina markaa maxay noqotay? wiilkiina markaa miskiinka wuxuu noqday ma hooyaad raacdaa oo asal ah, mise waxaad raacdaa maxaan ku idhahday gabadhan cusub ee xaaskaaga ah ee maxaan ku idhahday ee ilaahay jala wacala uu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum. dharkaaga ah, dharka aad xidhanay sidoo kale ku asturaysa, ku daryeelaysa. maxaan ku idhahday dharku ilaan sidiisa waxa weye wuu ku asturi, dhaxanna wuu kaa celini, wax walba wuu kaa celini. maxaa dhacday markaas? labadii ay dhexdoodii ayuu wareer. gabadhii marxalo waxay gaadhay, dagaalkii markuu batay waxay istiri ninkana waa jecesha odaygeeda, mana rabto inay ka tegto, mana rabto inay dhaafto, sababteedana ma rabto inay u dhaafto. kadibna markaa waxaa soo dhexgalay shaydaankii baa yidhi ila wa ila war qoftani dhib bay kuu tahay, maxaad samaysaa? shaydaankii wuxuu gaadhsiiyey inay marxalo ay tirahdo qoftanba ka takhallusba, ha ku dhaafto,
maxaa dhacday markaas marka waxaa dhacday ilaan si fiican uma fiirsan iyaduma hadday wanaajin lahayd way wanaagsanaan lahayd waxay tiri waa hagaag hadday xaaladdu saa tahay waxaan aadayaa nin ay siqaaneen oo farmasiga ka shaqeeya meesha dawooyinka ka shaqeeya ayaa waxay u tagtay oo reerka faamilka ah ayay u tagtay waxay ku tiri walaalow khayr allah ku siiyo waxaan rabaa bay tiri dawo waxaan rabaa sun inaan qof aan sumay uu ka naxay weliba waa u sheegtay waxaa ku tiri qoftii sodohda ahayd ayaan rabaa inaan ka dhex baxaba inaan isdhaafiyo uu naxo wuxuu ku yidhi qof wanaagsanna wuu khayr allaha siiya waanuu bilaabay wuxuu ku yidhi walaalay ilaahay maad kada yaabtidaa xaaraan weeye ee maad wanaajisidaa wanaagga markaad wanaajiso lacalla waxa weye akhlaaqdu waa waxa weye waa waxa keliyaate waxa weye bani aadanka bedeli kara maad akhlaaqda ku dadaashida ood wanaajisida may bay tiri horta waan ku dadaalay iyadana qofka bani aadamkuna shaydaanna mar hadduu wato uu meeshii ugu dambeysay wato waxa weeye kama tanaasulayn markaas waxaa ku tiri dhegeyso khayr allah ku siiya waxaan rabaa bay tiri niyaho markaas haddana wuxuu uga digay wuxuu ku yidhi bal ka waran buu yidhi haddii aad sumaysid qoftaasi waa u dhammaanaysa waxa weeye tuhmaa ku imanayso adiga waxaa laga yaabaaba adigu inaad isagiina weydid qoftii maxaan ku sodohdaadana weydid waxaan ku siinayaa buu ku yidhi laakiin ayadoo sidaas waxaan ku siinayaa sun laakiin markiiba dilaysa maaha waqti dheer bay qaadanaysaa waa sun guduhu galay wuxuu sameeyey dhala yar oo maxaan ku dhahdaa bahashan dhibicda ah dhibic leh ayuu ugu soo shubay biyo caadiya markuu ugu soo shubay wuxuu ku yidhi dhegeyso waxaad samaynaysaa buu ku yidhi haddii aad sidaas toos u dishid buu yidhi waa lagu qabani adigu xabsi baad gali odaygaagana waad waayi adigana naftaadii baad waayi doontaa waxaa laga yaabaa in xukum lagugu xukumo in lagu dilo maxaad samayni wuxuu yidhi maalin walba 2 maalmoodba mar u soo qaad buu yidhi waxaad hilib digaag maalin ay noqoto maxaan ku dhahdaa hilib maxaan ku dhaha ari maalinta iskolba sidii aad u aragtid si fiican usoo dhaweey tan labaadna ha tusin buu yidhi inta ay nooshahay waxaad ku dadaashaa mar walba in aad wanaajisid ayna kaa dareemin qoftani ilaan waad sumaynaysaa qoftani waxa weeye waa kala bixi doontaa waad kala tegaysaa intayna tegin wanaag tus sidaan lagu tuhmin sidaas yeel maxay samaysay markaas way kacday ninkii wuxuu u sheegay ayaa waxay tiri wallahi waa fikrad fiican maadaama ay waqti qaadanaysa laakiin way dhiman doontaa laakiin ay waqti qaadanayso oo anigana aan lay tuhmaynin oo aan maxaan ku dhahdaa marka dambena aan xal helayo imikaba maad qoftii wanaajisida waxay bilowday qoftii inay kolkoliso inay u naxariisato inay daryeesho ayadoo sidii u wadana dhinacan kalena waxay haddana ku jirtaa khadkii ay hoggii qodi lahayd wadaadda maxay samaysaa markaas maalin walba 2 maalmood bay waxay keenaysaa cunto fiican digaag bay maalin u samayni aad dooro u taqaanaa calaa kulli xaal waxay maalina samayni maxaan ku dhahday cunto fiican hilib bariis nooc walba wadaadii si fiicanay usoo dhaweysay ilaah amarkiisa bani aadan wey maadaama ay bani aadan tahay ay rabtay oo waxay u ilaalisay sida hooyadeed u ilaalinayso hooyo la ilaaliyo oo la ixtiraamo oo la daryeelo oo loo naxariistay xaggee gaadhaysaa wadaadiina waxay noqotay ilaahay jalla wacalaa qalbigeeda wuxuu ku beeray maxabo way jeclaatay inantiina maamaduna waxay u isticmaashay gabadhii ay yeeshay si alla si ilmaha la dhalay ilmahaaga aad dhashay aad yeeli lahayd ayay yeeshay soo dhaweyntii wiilkii waa yaabay waxyaalo badan oo isbedelay maxaa meesha ku jira akhlaaqdu waxa weeye qofka bani aadanka way bedelaysaa sifadaasa ilaahay jalla wacala sidaasa ilaahay jalla wacala qofka bani aadanka uu ku bedeli karaa maxabada soo jiidashada waxa weeye camalka aad qabanaysid ayaa camal aad ku soo jiidaysid qofka bani aadanka ah sida aad u wanaajinaysid si aad u daryeelaysid si aad u soo dhaweynaysid tiibaa markii ay yeeshay kadib ayaa waxa weeye isbedel xoogle ayaa ku dhacay maadaama siday talibaadna welina haddana weliba iyadoo sidii haddana qoftan daylan kolba siyaasad baa ku jirtay waxayna maalin ay iloobaysa ma jirto ee maalin walba markay u dhibciso ayaa wixii weyn ilaaha amarkiisa horta wadaadii maamadii
way jeclaatay gabadhii maamadiina isbeddel xoog laa ku dhacay ilaaha amarkiisa maadaama ay aragtay gabadhiina waxay noqotay ilaaha amarkiisa waxay aragtay hooyo oo qof bani aadan oo la soo dhaweyn sidii inanteeda ay u ilaalinayso hooyo ii fadhi hooyo ii joog hooyo ma qadaysay hooyo ma cashaysay la wado tiina ilaaha jalla wacala isbeddel buu ku dhacay maxaa dhacday markaas maadaama aragtay waxay tahay suntan aad maalin walba sumaynaysid ilaahayna maxaan ku idhahday aad hortiisa haddii qoftaad dhimato dhibaato gulgelisanaysa qoftan ay ku jeceshahay qoftan hawaayine bal ku noqo ninkii sunta ku siiyey u sheego walaalo waxaad ku tiraahdaa khayr allah ku siiyo ninkii bay u tagtay assalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaalow khayr baan ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka baryay inuu ilaahay subxaana watacaala tawfiiqna waafajiye waxaa jirtay tiri warniyahow suntii weli sidii baan u wada laakiin ma jirtaabay tiri suntan islaantii habartii ma rabay inay dhimato ma rabo anigu abadan laannu maxaa dhacday way jeceshahay anna waan jeclaaday xubbigeedii baa qalbigayga soo galay maadaama qalbigayga uu soo galay xubbigeedu ma raba bay tiri inay qoftani dhimato sidii ugu degdeg badan saan uga gaari lahayn nafteeda aan uga gaari lahayn suntaasina aan uga dhaqi lahayn walaalow noo sheeg markaasaa wuxuu ku yidhi khayr allah ku siiyo ana marka hore baan kuu sheeg waxaan kuu sheegay marka horeba wanaaji akhlaaqdaada u wanaaji u naxariiso daryeel waa isbeddel baa ku dhacaya wuxuu ku yidhi dawadaan ku siiyey buu ku yidhi maaha wuxuu sun may hayne waxayd biyo caadi ahayd laakiin suntu bay tiri suntu buu yidhi caqligaaga gudihiisa ku jirtay markii adii timi maalinta adii imanaysay suntu caqligaaga ayay ku jirtayoo caqligaaga ilaahay jalla wacala waa ka tirtiray buu yidhi muxuuna ku tirtiray wuxuu ku tirtiray jacayl iyo kalgacayl ilaahay jalla wacala uu kugu bedelay maxaana ku bedelayna akhlaaqda nabigeena suubanna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh daa'iman wa abadan ayuu leeyahy wanaagu muxuu yahay markii la yidhi nabiga caleyh salatu slam iyo xumaantu maxay tahay wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh albiru xusnu alkhuluq wanaagaba sidiisuba waa akhlaaqda wanaagsan والإثم ذنبنا ما حاك في نفسك وحي أديك الشك كقليا وخفت أن يطلع عليك الناس أنا تكبق جد إن تذكر أركان حمانتاس سمينيس ولا لا توفيق الله نوافج وناجي مركي أي سميسي إلهي وابدل إمي كان وحي أوقاتي إني وحي سمينيسي وحي ديدنته إن لو أركو سنتا أي سمينيس وحي كبق قيسا وحديث كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام وخفت أن يطلع على إن تذكر أركان qofdan oo wanaajinay oo ku wanaajinayso hooyo ku noqotay dhab ah miyaad isku noqotay waxay tiri khalaas bas maanta wixii ka dambeey marka ilaahay jalla wacala arrintii reerkii waa bedelay naxariis kalgacayl walaaltinimo iyo kalgacayl maxabba rabbaaniya ilaahay jalla wacala soo geliyay qoftiina way fiicnaatay oo ilaahay ugu dhawaatay daacada ay samaynayso maxaan ku idhahdaa sodohdeeda oo u khidmeynayso sodohdeeda oo ay kasoo qaaday hooyadeed oo kale hooyadiina ilaahay jalla wacala wuxuu qalbigeeda geliyay kalgacayl iyadan kalgacayl inay ka dhigatay inanteeda oo kale marka tawfiiqda allahna waafajiyo ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaa aan insha allahu tacaala aan kasoo gaarayno darsigeena soo socda waxaan ilaahay subxana wa tacaala ka baryay waa qaybtii 9aad iyo sirta ku jirta kalgacaylka rabbaaniga waataan sheegaynay waa kalgacaylkaas maxabadaas ilaahay jalla wacala uu dhexgeliyey zawjka oo zawjada jecel hooyada oo maxaan ku idhahdaa inanta ay maxaan ku idhahdaa ay tahay sodohda ay jeceshahay inanta oo maxaan ku idhahdaa sodohda jecel ayaan insha allahu tacaala aan ku dhammaynaynaa ilaahay jalla wacala waxaan ilaahay ka baryaynaa ilahan kasoo gaarayno darsigeena insha allahu tacaala 10aad ilaahay subxana wa tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay subxana wa tacaala nabad iyo caafimaad inuu ilaahay nagu gaarsiiyo wabillahi